kulanti wacan sabti wanaagsan daawadeel ku soo dhawaada channelka wararka Soomaalida waa 27ka bisha 7 sanada 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku maqli doontaan maanta waxa kamid ah urur goboleedka IGAD oo ballanqaad aan horey loo arag u sameeyay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre iyo mucaaradka dawladda federaalka oo ka qayliyay ciidamo cusub oo loo dalbaday inay al-shabaab ka ilaaliyaan xarumaha qaramada midoobay oo soo gaaray magaalada Muqdisho iyo si weyn oo loo soo dhaweeyay Saudi Arabia oo ka mamnuucday Xajka sanadkan mid kamid ah dalalka Afrikaanka haddaba maxay tahay sababta halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa maamulka koonfur galbeed oo qorshe cajiib ah u degay ergadii soo xushay xildhibaanada oo al-shabaab deegaanadooda ugu tagay Ilhan Cumar iyo saygeeda oo sabab la yaab leh isku furay iyo fadeexadii dawladda Qatar iyo fashilinta Soomaaliya intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan urur goboleedka IGAD ayaa ballanqaad aan horey loo arag u sameeyay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre sideeda wadan ee ku bahoobay urur goboleedka IGAD ayaa si wada jir ah u cambaareeyay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee Arbacadii toddobaadkan ka dhacay xarunta gobolka Banaadir kaas oo sababay dhimashada saraakiil ka tirsan dawladda dad uu ku jira duqa Muqdisho ay ku dhaawacmeen war ay si wada jirahay u soo saareen urur goboleedka IGAD laguna daawacay jariirada Strategic Intelligence ayaa sidan lagu sheegay urur goboleedka IGAD waxa uu sii wadi doonaa taageerada uu Soomaaliya ka siiyo isu soo dhawaanshaha dawladda dhexe iyo maamulada dalka ka jira dhismaha awoodda militariga kaabayaasha dhaqaalaha iyo dagaalka lagula jira al-shabaab si loo hubiyo xasiloonida gobolka Geeska Afrika weerarkii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir ayaa waxa sheegtay al-shabaab iyaga oo sheegay in bartilmaameedkoodu ahaa ergeyga xogayaha guud ee qaramada midoobay u jooga Soomaaliya James Iswan dhinaca kalena ciidamo cusub oo loo dalbaday inay al-shabaab ka ilaaliyaan xarumaha qaramada midoobay ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho iyadoo si weyn loo soo dhaweeyay magaalada Muqdisho waxa soo gaaray ciidamo ka socda qaramada midoobay kuwaas oo u dhashay dalka Uganda waxaana munaasabada soo dhaweyn loogu qabtay xarunta xalane ee magaalada Muqdisho munaasabada waxa ka qayb galay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswan taliyaha ciidamada lugta Uganda ee sareeya guud General Peter Elwayo iyo madax kale ciidamadan ka socda qaramada midoobay oo dhashay dalka Uganda ayaa ka kooban 625 oo isugu jira saraakiil iyo ciidamo oo 98 kamid ah ay yihiin haween waxaana ilaalin doonaan xarumaha qaramada midoobay iyo shaqaalaha ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho waxaan u mahad celinaynaa hoggaanka ciidamada ee hoos yimaada taliyaha ciidanka difaaca gaar ahaan taliyaha ciidamada dhulka waxaana hogaamin doonaa xirfad ahaan iyo si hufan ayuu yiri taliya ku-xigeenka ciidanka dhulka dalka Uganda Cornel Binamagusha ciidamadan ka socda qaramada midoobay ee soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxa ay bedeleen ciidamo kale oo waqtigoodu dhamaaday kuwaas oo dib loogu celiyay dalkooda waxaana sidoo kale ay ku soo aadaysaa xilli ay al-shabaab sheegeen in qaraxi ka dhacay xarunta dawladda hoose ay la damacsanaayeen wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswan geesta kalena Saudi Arabia ayaa ka mamnuucday Xajka sanadkan dadka ka imaanaya dalka Congo war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda boqortooyada Saudi Arabia ayaa lagu sheegay in dadka Xujeeyda ee ka imaanaya dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo la joojiyay oo aan la sii doonin dalkugal ama visa go'aankan ayaa yimid kadib markii hay'adda caafimaadka adduunka ay ku tilmaamtay dalka Congo uu ku jiro cudurka Ebola meel xaalad caafimaad oo halis ay ka jirto dalkugalka la siiyo qofka marka uu ka yimaado dalka DR Congo waa la joojiyay si loo ilaaliyo wanaaga dadka xajinaya ayay tiri wasaaradda arrimaha dibadda Saudi Arabia ayaa horey u sheegtay in ilaa 410 ruux oo ku nool dalka ku yaala bartamaha Afrika ay ka qayb qaadanayaan sanadkan gudashada waajibaadka xajka sida laga soo xigtay Imam Dajuma Tawaha oo ah hogaamiye muslim kana soo jeeda dalka Congo waxaa jira dad sanado badan urursanaya lacag ay ku xajiyaan taas oo gaaraysa $4250 ayuu yiri Dajuma WHO ayaa ku dhawaaqday xaalad caafimaad oo degdeg ah inay ka jirto Congo horaantii bishan balse waxay ku baaqday in dalalka caalamka aysan ka mamnuucin shacabka wadankaasi ganacsi iyo safarka intuba maamulka koonfur galbeed ayaa qorshe cajiib ah u degay ergadii soo xushay xildhibaanada oo ay al-shabaab deegaanadooda ugu tageen
taliyaha ciidamada booliiska maamulka koonfur galbeed mahad cabdiraxmaan aadan oo maalmahanba safar ugu maqnaa wadanka Turkiga ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay isagoo ka hadlay amarkii dhawaan ka soo baxay al-shabaab ayaa dhawaan u yeeray ergadii soo dooratay xildhibaanada golaha shacabka iyagoo sheegay inay galeen dambi isla markaana loo baahan yahay inay ka laabtaan. Waxa uu sheegay taliyaha in shabaab ay mar walba cabsi geliyaan dadka shacabka sidoo kalena ay doonayaan inay dhibaateeyaan, waxaana uu sheegay in marnaba aan la aqbalaynin. Ergadii loo yeeray ayuu sheegay in badankooda ay diideen, waxaana uu u baaqay inay hubka qaataan isla markaana booliiska koonfur galbeed ay garab taagan yihiin. dhinaca kalena Ilhan Cumar iyo saygeeda ayaa sabab la yaab leh isku furay. wargeyska Daily Mail ee dalka UK ayaa qoray in Ilhan Cumar iyo saygeeda ay kala guureen isla markaana ay ku guda jiraan hanaan ay isku furayaan. Daily Mail ayaa warbixin gaar ah oo uu qoray ku sheegay in Ilhan ay ciirisay saygeeda Axmed Xirsi oo markii ugu horeysay ay isguursadeen sanadkii 2012 balse ay isfureen 2018 ka hor inta aysan mar kale dib ay isugu soo noqon. wargeyska ayaa sheegay in Ilhan ay hadda ka guurtay Axmed kuna nooshahay dhismo qaali oo ku yaala Mail District oo ah xaafad ka tirsan Minneapolis. waan ka xumahay waxba kama oran karo arintan, ayuu yiri Axmed Xirsi oo Daily Mail ay wax ka weydiisay. sidoo kale Ilhan Cumar ayaa ka jawaabin xiriir ay la sameysay Daily Mail. Axmed Xirsi ayaa hadda kaligiisa ku nool guri ay wada deganaayeen isaga iyo Ilhan, hase yeeshee waxa uu tagaa guriga cusub ee Ilhan ay kireysatay marka ay ku maqan tahay magaalada Washington DC halkaas oo ay xubin ka tahay Congress-ka Mareykanka. Axmed Xirsi ayaa sidoo kale xaaskiisa ku soo dhaweyn garoonka diyaaradaha Minneapolis St. Paul Airport markii ay toddobaadkii tagay ku soo laabatay Washington DC. arrintan ayaa imaanaysa iyadoo Ilhan Cumar ay wajahaysa eedeymo aan weli caddeyn loo hayn oo xubno jamhuuriyadda ay ku sheegeen inay si been ah u guursatay walaalka si ay u keento dalka Mareykanka. ugu dambeyntiina fadeexayntii dowladda Qatar iyo fashilinta Soomaaliya. wargeyska The New York Times ayaa qoray warbixin la xiriirta in qaraxa uu ka dhacay magaalo xeebeedka Boosaaso ay ka dambeysay dowladda Qatar. wargeyska eedaasi waxa uu sal uga dhigay wadahadal teleefon dhexmaray nin ganacsada reer Qatar ah Khalifa Kayid Al-Muhannadi iyo safiirka dalka Qatar u fadhiya Soomaaliya Danjire Xasan bin Xamza Hashim. sida wargeyska uu qoray wada sheekaysiga waxa uu dhacay May 18 2019 kaasoo ku beegan toddobaad uun ka hor qaraxa ka dhacay magaalada Boosaaso. ganacsadaha reer Qatar ayaa ku yiri safiirka qaraxa iyo dilka waan garanaynaa cidda ka dambeyso, isagoo sii wata hadalkiisa ayuu mudane Al-Muhannadi yiri saaxiibadan ayaa ka dambeeyay qaraxii u dambeeyay. ujeedada laga lahaa qaraxaasi waxa uu ku sheegay mid joogitaanka Imaaraadka Carab looga saarayo meesha magaalada Boosaaso ha eriyeen qolyaha Imaaraadka si aysan ugu cusboonaysiin heshiisyada, waxaana heshiisyada keeni doonaa halkani Dooxa, ayuu yiri Muhannadi sida uu qoray wargeyska The New York Times. dhinaca kalena arrintan xiisaha leh ayaa ah in wargeyska The New York Times uu cadeeyay in codkaasi wada sheekaysiga uu duubay sirdoonka wadan ay ishayaan dalka Qatar, taas oo loo fasirtay Imaaraadka Carabta oo ah isha xogta loo jeedinaya dalka Qatar. marka dib loo celiyo waqtiga waxaa jirta in xurgufta qaliijka ka bilaabatay kadib markii la jabsaday website-ka wasaaradda warfaafinta Qatar laguna qoray warar waxyeeleeyay ammaanka iyo danaha qaranka dalkaasi yar balse saameyn weyn ku leh dunida. jabsiga website-ka Qatar waxa uu dhacay March 24 wax yar kadib markii madaxweyne Donald Trump uu dhameystiray kulan dheer oo looga hadlayay la dagaalanka argagixisada oo uu la yeeshay hogaamiyaasha qaliijka. inkastoo bilowgii madaxweyne Trump uu rumeystay wixii lagu shubay, haddana dib ayuu uga joogsaday kadib markii sirdoonka Mareykanka ogaadeen inay ahayd shirqool ay ka dambeysay Imaaraadka Carabta. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawad ayaa yiri dowladda Qatar waxay soo saartay war saxaafadeed ay ku cadeynayso inaysan ku sifoobin waxa uu qoray wargeyska The New York Times. siyaasadda arrimaha dibadda ee Qatar ayaa had iyo jeer ahayd mid abuuraysa deganaansho iyo barwaaqo, kuma mashquulno arrimaha gudaha ee dal madax bannaan, ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Qatar. sidoo kalena waxay ballan qaaday inay baaritaan ku sameynayaan mudane Al-Muhannadi. intaasi waxa raaciyay wasiir Cawad safiirkooda Muqdisho ayaa inoo yimid sharaxaad badan kadibna waan ku qanacnay, hase yeeshee su-aasha waxay tahay maxaa hadda loo soo bandhigay fadeexadda, maxaase ka run ah jiritaanka warkan.
khabiirada siyaasadda gobolka waxay rumaysan yihiin in imaaraadka carabta dhibaato u aragto xiriirka dhow ay dowladda Soomaaliya la leedahay dowladda Turkiga iyo Qatar waxayna Abu Dhabi rumaysan tahay in dalalkaasi ay caqabad ku yihiin qorshaha ay ka leedahay Soomaaliya. war laga soo xigtay koox u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha oo dacwad ku oogtay shirkadda NSO oo fadhigeedu yahay Israel iyo Qobrus ayaa sheegtay in kolkii hore Bigausi software imaaraadka uu adeegsaday lagu baasaaso kuwa kacdoonka siyaasadda ka wada gudaha iyo dibadda iyadoo loo marayo taleefanadooda gacanta. wargeyska waxa uu inta raaciyay in kadib markii loo soo jeediyay imaaraadka in la casriyeeyo tiknoolajiyadda ay codsadeen in la gaarsiiyo awood ay ku dhageysan karaan amiirka Qatar kan Sacuudiga ee nabad sugidda ka mas'uulka ah ra'iisul wasaaraha Lubnaan iyo tafeetiraha wargeys ka soo baxa dalka Ingiriiska Haratis Agoosto 2018 guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelka wararka Soomaalida waa nageynta. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar channelkan sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan wararkaynu halkan soo gelino. waana mahadsantiin.